waxaan dhageystay wasaaradda arrimaha gudaha oo gabadh Yuusuf la yiraahdo oo reer Soomaaliland oo Hargeysa joogta tidhi cafis bay ku joogtaa waxaan dadreys weydiiyay gabadhaasi in haddii ay dambi gashay iyo waqtiga ay gashay dee waa waxay iyada iyo dawladda u taala in iyada iyo dambi gelin haddii la yiraahdo wala cafi qof aan dambi gelina jawaabteeda iyo su'aasheedu waa aniga ima taalo waxa aan meesha doonayaa inaan qeexo dadkii aan ka hadlay ee reer Soomaaliya ahaa ee madaxda ahaa ee Soomaaliland yimid ee dawladda u martida ahaa ee halka yimid in haday noocay doonaba ha ahaadaan ama wasiirada ama xilal kala ahaadaan gaar ahaan gabadhii madaxweynaha isla sharaxday farmaajo isla sharaxday ee Soomaaliland timid ama waxay siday doonto ha u timaadee ee joogtay inaanay gabadhani waxaan qeexayaa inaanay gabadhani gabdhaha ku jirin waxaan u aqaanaa gabadh muwaadinad reer Soomaaliland waxaan ogahay inaanay wax xilal ka soo qaban koonfur haba yaraatee hase yeeshee anu iyada madaafaciyada iyadii baa nool oo wixii xuquuqda istaafici karta laakiin waxaan aqaanaa qofka la cafiyaa waa qof dambi galay qofka la cafiyaa waa qof dambi galay marka taasina iyadu ma iska daafici kartaa intaas ma doonay inaan qeexo inaanay ahayn dadkii aan u jeeday ee aan sheegay maalintii hore haday ka jawaabayeen tii aan anu sheegay inaanay Yuusuf ku jirin siyaasi Cabdilaahi Ismaaciil Cali Ciro waxa uu sheegay in hadda uu ka gaabsanayo siyaasadda balse ciidda kadib waxa uu sheegay inuu ka hadli doono arrimo badan oo la xiriira xaaladda dalka iyo waliba xisbiga kulmiye in haddaan intaa ku dhaafo maanta hadal badan ma waan holanayo oo hadal badan inaan ilaahdo ma rabo insha Allah markii ciidu dhamaato kadib ayaan arrimo badan ka hadli doonaa ugu dambeyntii Cabdilaahi Ismaaciil Cali Ciro waxa uu ummadda muslimka gaar ahaan shacabka Soomaaliland uu ku abaliyay ciida maadaama ay maanta tahay yawm al-Arafa maalintii ugu khayrka badnayd caalamul islaamka waxaan leeyahay dhammaanba Soomaaliland meel ay joogaanba ciid mubaarak sanadkiisa Ilaahay haynu gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo baraare waxaan gaar xambaryada ugu dirayaa intaan isku fikirka nahay iyo saaxiibaday meel ay joogaanba iyo dhammaanba intaan isku fikirka nahay fikirkaas oo ah inta qabyaaladda ka soo horjeeda Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa